مشروعا فرح laga bixinayo Kenyaankii faraha qaxootiga galan 1991kii ilaa iyo hadda intii u dambeysay qaxootiga 2011 uu soo qaxay farihii dadka Kenyaanka naga galeen ayaa maanta laga bixinaya barnaamij la sugayo aha dawladda way la soo daahday dhibaato badanna waa laga kulmay alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican buu u bilowday hadda taagna barnaamijka si fiican buu socdaa farahan qaxootiga ee Kenyaanka galeen وجود بدن بأوجلين قارقاد وحها عند ترير جورا أو حاله هذه أبارت كتنا ما يصير أو سامين وين يكوي على تاي أو سوال لما مركي جلين بي قعوتي فريسة جلين سفع الرور طادنا أي واحد برشة بلاش أو هلان دابب بلاش أو هلان واحد كسير راشين أو هلان قعوتي سلا درتت بأوجلين ضنا وحوجلي فرق قعوتي ما دام قعوتي مركي كانوا صدق قضب أوتها حل كيسة inay dhoofaan ama Kenyaanka ku darsamaan ama dib loogu celiyo dalkoodii dadna faraaq qaxootiga waxa uu geysay inuu ku dhoofo dibadda aado alxamdulillaah rabbil caalamiin dad badan oo deegaan oo dhoofan garanayna wax walba sidiisa waana laga faa'iido waana laga qasaartana wuu lahaa faa'iidana wuu keenay faa'iido wuxuu ku lahaa dadkii 20 sano la soo dhaafay qaxootiga raashin ka qaadanayay walaalooda soo qaxeen dheen anagana qaxooti baan lanne raashin ku qaadanayay ilmadan qaxootiga waxa uga bartay waxbarasho iyo caafimaad firiin haystaan way ka faa'iideen kuwii dhoofayna way ka faa'iideen waxa qasarta kula kulmay qayb kamid ah dadka aan ka hadlayo oo deegaanka ah oo ilmahoodii wax barteen oo kibaan dhalacaan shaqo la helila ama dawladda ciidan ay u qoran laadahay oo meelahan iska tagtaagan hadda oo wax ay qaban karin aan jirin oo gaaris aan gaari karin oo na Kenyaan ah oo qaarkood aabayaalkood iyo hooyaalkood kibaandhooda uu 00 ka bilaabanay ayaa maanta kibaanala oo halkan aan ku haynaa oo anaga sheey karnaa waxaan ka cabsi qabaa hadii tahay wixii hadda faraha iska bixinaya haduu ahaan lahaa dadka oo Kenyaanka kali haday ahaan lahaayeen dhibaato ma lahaateen waxaan aaminsan yahay in bilgeeda ku dhamaan lahayd laakiin waxa laga yaabaa ma hubi dad qaxooti oo kibaandha qaataa jira inay rabaan kuwaas inay ayukana Kenyaan la noqdaan oo fariiq qaxootiga dib iskaga bixinayaan hadday arinta soo baxdo muddada in lagu kordhiyo noqon doonta ruuxa soo socdo wuu iska fiican yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin wax dhib ma jiro si fiican bay u socotaa shaqada dadkii faraha laga bixinaya jawigu degan yahay qayl ma jirto